السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولالكين إنا آذان شيخ علي وكما قاعدير عبد الله فيلو كسر دوادة برنامجكين اوه الرئيسي ديرقليتانكا qof kasta oo u baahan yahay in la dhiirigeliyo ugu horey waxa u baahan qofkan dhan ee hadlaya in uu isagu isdiirigeliyo oo isla hadlo oo wax badan uu ka faa'iideysto maanta waxaan isku dayeynaa amba aan isleenahay dadka waad ku dhiirigeli kartaa oo waxbay u qaban kartaa amba way anfici kartaa aan isleeyahay saddex calaamadood amba saddex camal oo haddii aad iska ilaalisid dadka kula gala amba kula degan aad ka ilaalisid in aad waxaad rabtid noloshaada aad targetka aad leedahay amba hadafyada aad leedahay hore ku wadi kara saddexdaasi kooban haddaan u sheego waxa weeji cabasho canaan iyo cay cabasho maxaa tahay cabashadu waxa weyn inaad qof cabanaya markaste oo calaalaya waxba iga maqan shaqada waa igu ka daali maya barnaamij baan sameynayaayo waa igu adag tahay inaad qof cabasho badan oo waxaan ba ka cabanaya inaad isku aragtid iyo inaad haddana dadka ku caawito tiraahdo ani waxaan ba iga maqan ani tani ma gaadhin ani tani ma helin ani xaggan ma tegin yani cabashadaas adiga waxay ku dilaysaa ay ku baabiinaysaa shakhsiyadaadii marka lagu arko waa kan ninkii cabashada badnaa waa kan qofkii cabashada badnaa may waxaa kale dilaysaa maskaxdaada psychologically qof maskaxdaaday dilaysaa nafsiyadaaday dilaysaa shayga labaad aad iska ilaalinaysid amba aad ka ilaalinaysid ummadda aad la degan tahay amba aad la nooshahay meel kasta aad joogtid canaan kow waxaad iska ilaalin canaantaasi naftaada aad ka ilaalinaysaa inaad iscanaanatid waa run waxaa dhici karta barnaamijyo kuu qorshaysan iyo hadafyo aad digatay inaad marmarka qaarkood aad gaari weydid laakiin inaad subax kasta maalinta aad soo baxdo ilaa markay dhacdo subax kasta inaad iscanaanatid xaggan maxaad u tegi weyday xaggan maxaad gaari weyday qofkan maxaad ula hadli weyday tani maxaad u sameey weyday camal kasta ood qabanaysidna inaad iscanaanatid sababtoo ah wax dhacay dib usoo laami maayo laakiin waxaa la rabaa waxaa jooga inaad xagga ka qaadatid waa kii rasuulka xadiis ku lahaa wax kugu dhaca inaad tiraahid amba wax aad samaysid inaad tirahdid maaha alla haddaan saan sameey lahaa way sameyn lahayd oo waxay ka dhigan tahay nafsiyadaada iyo waxaa la ilaalinayaa qalbigaagan in aad qof isla hari noqotid saddexaad waxa weeji inaad cay qof af xun noqotid oo dadka caayaya la degan amba dadkan aad isla nooshihiin amba shakhsiyadaada dad waxaa jira is caaya waxaasoo dhan waxay ka imanaysaa inuu qofku naftiisii baaba u dareemo qof iscanaananaya qof cabasho badan qof iscaayaya inuu kahor intuu dadkii horbixinba in aw isagu naftiisa isla haro laakiin inaad marmarka qaarkood wax isweydiisid ood isla hadashid ood wixii kugu talagalay inaad iska canaanatid way fiican tahay dadka aad la geshid amba aad la degan tahayna uma fiicno inaad canaanatid amba inaad ku cabatid amba inaad ahayd saddexdaasi waxay noo fudeydinayaan inaan haddii aan iska reebno amba aan yarayno inaan gaarno oon gaarno meeshii aan rabnay marka saddexdaas si kasta meel kastoo joogto haddaad arday tahay haddaad hooyo tahay haddaad qof shaqaynaya tahay haddaad aabbo tahay haddaad qof shaqaale a tahay inaad iska ilaalisid inaad noqoso qof cabasho badan qof canaan badan iyo qof cay badan